kusoo dhawaada mar kale ayuu show haddii inuuna ay qorshaha kugu jirto inaad u soo dalxiisto magaalada Istanbul cuntadan aan kula wadaagi doonaa ee aan ku tusayo mar dhow ha ka mid noqoto qorshahaaga waxay ka mid tahay cuntooyinka ay ugu jecel yihiin malaayiinta qof oo soo dalxiistaga magaalada Istanbul ka ugu yari waa ka dhadhamiya waxa indhahagu qabanayaan badi markaad gasho hoteelada macmacaanka ee dalkan Turkiga dad iyo kala duwan kuwaasi oo ku hawlan kala doorashada nooca macmacaanka ay rabaan kanise waa baklava wana mid ka mid ah macmacaanada caanka ka ah dunida gaar ahaan maskaxdaada ku soo dhacaya markaad timaado Turkiga qaabka loo sameeyay macmacaankan caanka ah ee baklava ayaa mid ku soo jiidanaya dhadhankiisuna waa mid cajiib ah inkasta oo dalal badan lagu sameeyo caan uu ka yahay haddana baklava ayaa mid sameyntiisa ay gaar u lahaayeen Cusmaaniyiintii ka talin jirtay mar dunida baklava ayaa halka hore kaga jira 10 cunto ee ugu caansan guud ahaan Turkiga boqolaal kamid ah dadyoga dalxiiska u yimaada magaalada Istanbul ayaa hadiyad ahaan waxa ay ugu daraan eheladooda marka ay halkan yimaadaan absolutely markasta oo aan imaado ama aan Turkiga xasuusto macmacaanka sanadka inshaay waxaan isleeyahay talo maba ka barataaba cilmiga sida loo sameeyo si aan u samaystaan baklava ayaa kamid ah macmacaanada ay aad ku jecel yihiin malaayiinta qof ee soo booqday Istanbul ee aan anigu ku jiro ku xidhno ayuu show la socon muqalaso